halgan noloshii oo muddo ka shaqeynay Maxamed Samaale ani Maxamed Samaale waxaan isku baranay shirkii Heritage dhalinyaradii nala joogtay ayuu kamid ahaa oo ilaa ra'iisul wasaarayaal badan oo uu kamid yahay Shirdoon Saacid iyo Xuseen Rooble iyo Sheekh Shariif ayaan u wada tagnaa maalmo dhan wareegayna Dhuusamareeb marka runtii maanta sharaf iyo qiimo ay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan aniga wayaa Dhuusamareeb ayaan saqafka naga sareys ku soo bandhigay marka Maxamed Samaale waa nin dhalinyaro ah oo u baahan dhiirigelin qof dugsi sare ka baxay waa dareemi kartaa sanadkan buu qoray annaga deegaanka cira laho waa weyn aad ani 10 sano wax qoray marka anoo weyn wax soo galo jaamacad dhiganay marka asoo dugsi sare ka baxaya inuu buu qoro runtii waa iftiini u tahay sidoo kale Maxamed Samaale runtii qofka hibadiisa lama qari karo arday dugsi sare hadda ka baxaya inuu buu qoro runtii wax sahlan ma aha Soomaaliya iyo qofka anako dareemi karna inuu qofku dagaal sokeeyo ku koray haddana maskaxda fiyo ee qofkii ku rakibanta hibi Ilaahay sii waaye marka Maxamed waxa leenahay hambalyo jid dheer oo horumar ah ayaad bilowday caawatani waa ififaalo guul iyo waxaan ku rajaynaynaa barwaaqo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa agaasimayaashii iyo xildhibaanadii iyo dhalinyaradii runtii caawan ugu sharfay maadaama anu gudiga aan kamid ahaa wax shaqeynayay laakiin bahda qorayaasha dhankaas angalkaas ayaan ka soo galayay marka Maxamed Samaale iyo dhalinyarada kale waxaan leeyahay waa maasantihiin guul ay rajaynaya sharafi karaamo meel gaar ah qof xisan tahay